kulanti wanaagsan akhyaarta nadaawatayo markale iyo barnaamijkeennii falanqaynta dabcan waa jimce waa 22 bisha maanta falanqaynta waxaynu daawadayaasha qiimaha leh u kala qaadi doonaa laba qodob waxaana dabcan igu heliya Mahdi Warsame oo kamid ah xildhibaanayaasha dadka inta badan u warhaya wacaalaha dalka Mareykanka ku soo dhawaada bahda saxaafadda ee Horfadhi Media maanta waxaan bilaabaynaa arrimo ku saabsan siyaasadda gudaha ee wadanka Mareykanka dabcan waxaan sidoo kale falanqaynta ku eegi doonaa xaaladda dalka Yemen iyo dalkaasi Soomaaliya waxyaalaha dalka Sacuudi Carabiya iyo dalalka Carabta ay ka aaminsan yihiin iyo waliba sababta ay markaas uga lug jiidayaan inay marxaladooda fargeliyaan iyo danaha qarsoon dabcan intaan ayna gelin arrimaha dalkaasi Mareykanka oo iyaguna aad u xiiso leh waxaan Mahdi u eegi doonaa haddii la idmo arrimo badan ama qodobo badan oo ay kamid tahay dabcan baaritaanka ka dhanka madaxweynaha sidoo kale wuxuu eegi doonaa arrimaha ay ka dhalan kara baaritaankan haddii uu wax laga helo ama dambi lagu helo madaxweynaha iyo haddii aan lagu helin iyo sidoo kale sida uu saameeyo hawlaha caadiga ah ee dalka Mareykanka dhawaan sidoo kale waxa in eegi doonaa sharciyo waaweyn oo ka dhana dadka soo galootiga dalka Mareykanka jooga iyo kuwa ku dhaqan ama saameeyo oo madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay xukuumaddiisu iyo waliba arrimo badan oo yaab leh oo aad iyo aad muhiim u ah falanqaynta ku daawa doontaan horta aan ku horeeyo anigu intaanan Mahdi ku reejin dabcan arrinta ku saabsan dalalka Yemen iyo dalkaasi la yiraahdo dalkeena hooyo ee dalka Soomaaliya waxa muuqata in arrimahoodu ay yihiin kuwa laalan waxaan ka wadaa arrinta dalka Sacuudi Carabiya oo iyo waliba dalka Imaaraadka Carabta iyagu waxay aad ugu lug leeyihiin isla markaana ay indhaweetaba ay saameyn xooggan ay siinayeen qadiyada bariga Afrika ka soconaysa waxaanu arkaynay in aad loogu soo dhaweeyay magaalada Jidda maamulayaasha dalalka Ethiopia iyo Eritrea iyo sidoo kale madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle inkastoo madaxweynaha Djibouti aan ilaa xad sida dalalkaas kale loo maamusay hogaamiyashada loo maamusay dabcan ay tahay bilada la yiraahdo the order of King Abdulaziz aan qoorta loo surin oo ay sidoo kale aan la sameeynin yaani baaweyntii xooganeed ee hogaamiyashan kale u baaweeyeen haddana si kastoo ay noqotaba dalka Sacuudi Carabiya ilaa hadeerto waxa la isweydiinaya ama dad badan isweydiinayaan sababta dalka Yemen oo albaabka labaad oo saameyn badan ku leh dad ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo walaal ahaanba ay dhibaatada xoogan uga horinayaan iyo waliba dalka Soomaaliya oo iyaguna dabcan xiriir wanaagsan ay aanu lahaa jirnay kolkii intii ku horeysay intii dalalkan aysan qaniyoobin oo saliidan EP uusan ku manaysan haddana waxa la isweydiinayaa sababta ay dalalkan ay uga maagayaan arrimahan dadka arrimaha falanqeeya ama xogaha dhinaca diblomaasiyadda aad bay u kala duwan yihiin waxaana mararka qaarkood ay dadka qaarkood ay kula saarayaan arrimaha laba arrimood mid waxay ku saabsan yihiin dhibaatooyinka xoogan ama dhibaatadu inay ka xoog badan tahay tan dalalkan ay doonayaan inay isku dumaan bariga Afrika ee dalkan Ethiopia iyo dalkan Eritrea oo ay siyaabo kale Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta uga faa'iideystaan isla markaana aysan xalku uga fududayn marka la eego waxa hoos yaala dalalkaasi oo ay kamid tahay haday tahay kala qaybsanaanta xoogan ee ummadda tusaale ahaan dalka Soomaaliya oo kale ka jirta dhexdiisa oo ay tahay mid ku saleysan qabiil mid ku saleysan marhab hatta mararka qaarkood la oran karo iyo caqiido aan aad ugu cusub dadka Soomaaliyeed in dadka qaarkood dhibaatooyinka jiray kamid yihiin iyo waliba inay yihiin dabcan kala qoqobkan xoogan iyo maamul goboleedadan Trabeelka iyaguna siyaasadda dalka xoog ku leh isla markaana ay aad jahawareerka faraha badan aysan waqti badan u haynin hase yeeshee arrintaas waxaad moodaa in justification badan aysan lahayn ama aysan lahayn marmarsiyo badan aysan lahayn ilaano waxa dadka arrimaha inta badan arrintaasi sheegaya aysan aad u darasin yaani in la oraba karaba xaaladda Soomaalidu aad bay u fududahay tusaale ummadda Soomaaliyeed marka la eego dadkooda hadeerto ugu badan ama populationka ummadda Soomaaliyeed waxa ugu badan dadka dhalinyarada yaani dadka 30 jirka ilaa iyo 17 jirka ayaa ugu badan tira ahaan dadka ilaa 35 jir baa ugu badan dadkaas waxay u eegyihiin dad aad u bislaaday isla markaana dad dhalinyaro ah oo runtii aysan aad saameyn badan ugu lahayn waxyaalahan ama suntan ay faafinayaan dadka siyaasiyiinta ee dadka da'da dhexe iyo ilaa iyo da'da hore waxaana muuqata in arrintaasi ay sahlanaa lahayd hadii dawladdaasi ay isku day lahaayeen in ay dabcan xal u raadiyaan ummadda Soomaaliyeed in hatta kacdoon xoogan la heli lahaa oo dabcan hadii xal intuu yimaado dadka qaarkood ay diidaan ama xal caalami ah noqdo ama mid dad walaala ama dalal walaala ay keenaan han noqday oo runtii waxtar weyn u noqon lahayd markaana Soomaalidu abaal weyn ugu haylahayd marka laga yimaado wararka yaani khuraafaadka ah ee Soomaalida dadka qaarkood ama Soomaalidu isla dhaxmartay tiraahdo tusaalahan shidaalka Soomaaliya in la soo saaro Sacuudiga diidaya ceelasha Soomaaliya ayaa waxay ku yaalaan meel hoose kuwa kala Highland oo dhulka sare ku yaala waxba يعني اسكو سو شدالك حقا سو قدسمية يعني شيكوينكاس هو اسكا
qabteen wax yani loo hayo qiil ama wax loo hayo cadayn ma laakiinse arinta yaab kale ee fajacale hadda la fahmi lahayo waxa weeye maxay carabta ama dalka Sacuudi Arabiya oo dhaqaale ahaan awooda siyaasad ahaan awooda inuu Soomaaliya wax ka qabto arintiisa muxuu wax uga qaban waayay waa aad bal isku weydiinaya runtiina wax yaala farabadan baa soo baxaya dadka marka arinta dhibaatada xooggan keenaysa waxa weeye dalka Sacuudiga warbaahintu kuma laha awood badan kuma laha warbaahin madax banaana kama jirto kama hawl gasho sidoo kale dadka ama reerka ama qoyska reer Al Sacuud galaangal uma laha warbaahinta isla markaana lama hadlaan in wararkooda la helaana in clicks oo kale ama dabcan ay jabsadaan oo dabcan wada aan sharci ahayn lagu raadiyo mooyaan wada sharciya in lagu helo aad iyo aad ayay u adag tahay runtiina waxa yaab leh in حتى ورك إنه كانوا يهم ورر أنت بدن نوع يعني إنه كل هذا النوع سيادي أقول بدن ذاك السعودي قبل كي تسمعه أو أنا وكل قريب إنه ورر كلمة سردون طلال كله يو ورر طبعا أيوة وقلادان وسيدايين مركا أنت سعودي قولي ويهارت بس أنت لقفل بفهم كرو أما عدول بفهم كرتو وحوي أما أدلو فهم سنيه إن أيسن سعودي أيسن ضلكن صومالي أيسن حبيرات أيسن رابين إن حل دجنا شو أما دولة ama midnimo ha noqoto ama haba noqoto in hataa ay dadku wada hadlaan iyadoon midnimadu haday doonto dadku aysan kuba qasbanaan laakiin hataa in la wada hadlo miiska la soo wada fariisiyo umada Soomaaliyeed haday tahay kuwa maamul goboleedada iyo haday tahay dawladda dhexe iyo Somaliland iyo haday tahay cid walba yaani inaysan Sacuudiga iyo Imaaraadka xulufadiisu aysan haba yaraatee wax abateeda u ahayn Soomaali midaysan ama Soomaali wada hadasha ama Soomaali wuxuun isku raacda baa muuqanaysa arinta Yaman ayaa iyaduna tusaale kale waa inkastoo arinta Yaman laga yaabo inay Sacuudiga wadnaha farta kaga hayeen asaameynta Iran hadana waxa la oran karaa fursadda Iran ay gobolka ku timid carabta bixisay oo carabta siisay dad badan waxay is weydiiyaan Iran fursadda ay ku qabsatay halkaas carabta ayaa ka dhameysay leeyahay carabta waxay ugu dhameysay waxa jirtay xilli kooxda Xuutiyiintu ay hal degmo ama tuulo yar oo ku taala gobolka Sacda ka tirsan ay joogeen yaani xilligaas wax badan bay ka qaban karayeen Sacuudiga haday tahay dib u heshiisiin inay ka sameeyaan arinta oo dadka Yamaniyiinta qayb Shiica qaybna waa Sunni haday tahay in ay marka talaabo military ka qaadaan oo talaabo military ka qaataan iyo haday tahay in aysan eegan tan iyo intii kooxdan intay gobolka Sacda wada qabsatay gobollo kala qabsatay hadana caasimadda qabsatay inaysan sugin intaas oo dhan Sacuudiga talaabo qaadi karay marka la eego arintaas waxa la oran karaa Sacuudiga malaha wuxuu rabay in dalkan sida noqdo oo burburo oo baabo inkastoo hadana marka la isticmaalo yani common sense waxa loo yaqaan ama yani inaad aqligaaga caadiga isticmaasho dan uguma jirto in dalka dariska la dalkaasi uu gubto uu ololo waxdan oo ugu jirta ayaga amnigooda qaranka ma jirto hadaba waxa la isweydiinayaa Sacuudigu hadaba hadarta arinta ma kala bixi karaa ma jirta wax yani wax loo yaqaan U-turn political U-turn ama inuu sameeyo wax ay la yiraahdo jiro siyaasadeed ma sameeyo karaa Sacuudigu ma iskala wareejin karaa dhan kale ma iskula kala wareejin karaa ha waayo Sacuudigu wuxuu u haystaa laba arrimood labadoo Sacuudigu uu helaya hadii ay dhaqaale tahayna dhaqaale uu arinta ku fuliyo uu haya haday سياسات هاينا وهلي كرا طبعا ما هيا يوم هلي كرا وكلا وهلي كرا لأنه دلالك غير قلبات كordن ويسعودي ويكوتها غيري كان هدوغ لي ما دو هندسة سياسات أو أورانيا أينو أرنت لوكا ديجنو أرنت ملترينا أين أكادينو أرنت دلك اليمن أينو ميسك وضح هذا الكسوة فريسين دلك اليمن هوا ده هالين دولة يقاعد حوتين توا يجونا ده أولها ديره أول سياسات ضدنا متشة وضد كاشي على متشة إيران لا يكسر لرنتهاي ميسك وضح هذا الكسوة كانوا حتى سعودي ولا حد وحوهلي كرا إن إيران ماشى laga saaro oo markaasi oo si tartiib looga saaro dhaqaale oo arinta ku implement gareeyana uu heli karaya arin siyaasadeedna siyaasadaha markay noqoto Mareykanka iyo midowga Yurub iyo cid walba iyo wadamada Carabta iyo wadamada Islaamka oo dhan hadii la xal bal Kenya siyaasad cid diidaysa ama ku diidaysa mala ala kulli xal meel loo wato Sacuudiga waxa muuqata siyaasadiisa meel loo wato arinta marka geeska Afrika in Sacuudiga uu ka gaari karo guul waxay ku xiran tahay wax loo yaqaano political balance in uu yani wax loo yaqaan isku dheelitir siyaasadeed
inay ka timaadana way calaamad su'aal weyn ayaa fuulas waxay u fuulasaa hadii Turkiga inkasta oo Turkiga iyo Qatar aysan muuqan inay loolan adag kula jiraan dalkan Sacuudiga sida uu Sacuudiga iyo Imaaraadku ugu jiraan oo yaani ayaga la kooday aysan sameeyeen talaabooyin u dhiganta kuwan uu sameeyay aysan sameeyeen haddana waxa lama horaana oo cad in uusan ilaa marxaladda Soomaaliya meel ku ogaado oo haday tahay istaraatiijiyad iyo haday tahay biyaha badan ee Soomaalidu haysato yaani biyahan xeebtan dheer iyo haday tahay yaani istaraatiijiyadda gobolka meesha uu dhaco wax badan ayaa ku xidhnaanaya aad iyo aad u badan waana taatan hadeerto loo maleenayo in Djibouti dhinaceeda uu ugu dhaqaaqay sidii loo sii weeqo dabcan dawladda xamar ee Soomaaliya iyo dabcan iyo waliba horintan dhinaca siyaasadda colaadan siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaalida dhexdooda gaar ahaan maamuladan ku sharay Kismaayo ee warmujiyadka Kismaayo ugu dameeyay 7 bish arrimaha kale muhiimka ah inaynu isjira weydiino ama dabcan aynu wax iska niraahno ay tahay ama ay mudan tahay inay isku kor taagno waxa way hoggaanka Sacuudiga uu doonayo in uu dunidan ku hogaamiyo gaar ahaan caalamul islaam uu ku hogaamiyo halkee ayuu maanta jooga yaani waa halkee marka la eego 3 sanadood ka hor iyo maanta Sacuudigu isku meel ma joogo 3 sanadood ka hor waxa jirtay mar ay dalalka Sweden iyo isku dhaceen iyo dalka dhinaca diblomaasiyadda ka hadlaya isku dhaceen iyo dalka Sacuudi Arabiya waxa Sweden ay ku sigatay in wadamada islaamka oo dhan xiriirka u gooyaan ayay ku sigatay inaad xusuutaan magranaya wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden ayaa markaasi hadal gefe ku yiri dalka Sacuudi Arabiya gaar ahaan wuxuu ka hadlay qadiyada dhinaca xuquuqul insaanka cirkaasi arrintaas ku sareertay intaas oo dalba xiriirka u gooyay dalka la yiraahdo Sweden oo midowga Yurub ka tirsan ayaa qiiqeel gashay oo dabcan dalqani waxa Sweden markii dambe khasab ku noqotay in yaani handwritten apology yaani warqad gacanta lagu qoray oo raali gelina inta la qaado oo gacanta lagu qoro wasiirka arrimaha dibadda dalka intuu diyaarad raaco inuu geeyo Riyadh ayuu gaarsiiyay hadeerto sanad ka hor maxaa dhacay markii dalka Qatar xiriirka loo geeyay dalal aad u kooban oo boqolkiiba 2 la oran karo dalka muslimiinta baa Sacuudiga la sabtay laano yaani meesha Sacuudiga laga fulayay iyo meesha uu isdhigay ayaa laga yaabay hadeerto commentatorada iyo dadkan political analysis ka sameeya iyo dadkan yaani muxalliliinta ee ka hadlaya warbaahinta Carbeed ee madaxa banaan ee baraha bulshada ka hadlaya dhamaantood waxay ka hadlayaan oo faafinayaan sawirrada nimankan geeska Afrika qoorta loo gelinayo waxayna calaamad su'aal saarayaan Sacuudigu wuxuu nabad ka raadinayaa Eritrea iyo Ethiopia wuxuuna nabad darro la raadinayaa Soomaaliya iyo Yemen balis weydiinay yaani waxay ku leeyihiin yaani wax aqliga gali kara maaha waana siyaasad faashil ku dameynaysa ay ku leeyihiin oo ah siyaasad xaq darrada ku dhisan tahay oo cadaalad darro ah isla markaana ah siyaasad markaasi aysan cidna aqbalaynin oo Sacuudiga aan sharaf u soo kordhinaynin bay ku leeyihiin oo markay timaado yaani international image ama sawirka siyaasadeed ee laga qaadanayo waxa uu dhigaya qof walba wuxuu xasuunayaa waxa Yemen ka wada hay'adda Save the Children ba shalay iyo daraad mid ahayd warbixin ay soo saartay waxay ku dhawaaqday in 5 milyan iyo 200 oo kun oo caruur da'yar abaydina oo ciidi ay gaajo qarka u saaran yihiin dalka Sacuudi Arabiya oo qaniyana oo dhibaatada albaabka labaad ka wado markaana 5 milyan oo caruur macluul u dhiman kara gaajo qof u dhiman kara caalamka maanta jooga oo Carbeed oo hadana dalka Sacuudiga uu la xiriiro yaani waa arimo yaani la isku ilhaana weyn waana dhibaato weyn waana waxyaalaha eebe uu cadaadisa ku soo dedejiyo ayay kamid tahay waxyaalahaas oo kale in la isku taadiyo inagu dabcan mar walba inagoo jecel in dunida oo dhan ay nabad noqoto hadana tan dunida islaamku ay baraaray barwaaqo gaadho hadana waxa muhiim ah inaynu ka war hayno dhibaatooyinka siyaasadeed caalamka gaar ahaan kuwan caalamul islaam cidda budhigaha u ah siyaasadan kale furfuran ee hadeerto yara joogsatay kadib markii mucaarado xoogan ay timid oo ilaa xataa afgambi ima gaaray yarka dhalinyarada ah uu la cararayay Maxamed bin Salman MBS ayaduna waxaad moodaa in hadeerto salka dhulka uu yara dhigay laano kala qaybsanaan xoogan ayaa Sacuudiga dhexdiisa laga dareemay sidoo kale siyaasadii waxay ka cuntami weyday dalalka caalamul islaam ee waaweyn bay ka cuntami weyday ee ahayd inuu ilaa xad wax badan bedelo inkastoo wali vision kii uu bixiyay 2030 vision ama aragtida 2030 wali uu yiri waa on the table ama miiska ayay saaranta wali ku adkaysanayo hadana waxaad moodaa in uu ugu yaraan dib u fadhiyo hadeerto